kulanti wanaagsan habi wanaagsan waa suldaanka TV wararkeena waxa ugu waaweyn shirka lagu wado inuu qabsoomo dhawaan ee u dhaxeeya dawladda dhexe Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka ee mucaaradka ayaa mar kale wajahaya culeysyo waaweyn kadib sharuudihii ay soo jeediyeen labada hogaamiye ee Jubbaland iyo Puntland oo aan la fulin guud ahaan maxaa la fila karaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kuna jira golaha mustaqbalka oo si adag uga hadlay doodiisa ayaan muuqaalkan ku faahfaahin doonaa gudoomiye Aadan Madoobe mar kale wuxuu ganaaxay 6 xildhibaan oo baarlamaanka Soomaaliya waa raaci saddexaad oo fawda ka sameeyay fadhigii Villa Hargeysa iyo sidoo kale is-horistaagga ay ku sameeyeen qorshihii ku saabsanaa gudoonka baarlamaanka ee Villa Soomaaliya inay soo dhiraandhiriyeen xildhibaanada caawa la ganaaxay waxa ku jira Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsam maxaa la fila karaa biri fadhi labada aqal oo aan caadiyeyn ayaa jira waxaana lagu ansixinayaa qodobada aba cutubiyada kamid dastuurka la isku hayo muuqaalkan sidoo kale waxaan ku eegi doonaa mucaaradkii ka go'ay madasha samata bixinta ee Cumar Cabdirashiid uu hogaaminayo ku dhawaaqay go'aan ee ku saabsan dastuurka la isku hayo fariinta xubnahaasi ka soo baxday iyo doodooda ku saabsan sidii u arkaan ayaan eegi doonaa madaxweyne xasan waxa lagu wadaa markuu ku soo laabto gudaha magaalada Muqdisho inuu sameeyo isbedelo waaweyn xukuumadeed iyadoo xogaha qaar ay sheegayaan inay jiri karto isku shaandhayn golaha wasiirada qodobadaas iyo qodobo kale ayaan dul istaagi doonaa tabinta muuqaalkan waa 8 bisha labaad habi wanaagsan meel ka soo joogtaan soo dhawaad wargelin muhiim ah ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaaga soo cumreeyo bisha Shacbaan oo ah Ramadaan kadib bishii ugu soonka badnaa subanaheena Muhammad nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee waxaana fursadan kaga faa'iideynaya shirkadda At-Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimis ballaaran inta lagu guda jiro acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin inta dheer nagala soo xiriir cinwaanada iyo taleefannada shaashada kaga muuqda waxaynu ku bilaabaynaa dhawaan ayaa lagu wadaa wixii ka dambe 10 bishan in Muqdisho ka qabsoomo kulanka golaha mustaqbalka ee Soomaaliya iyo dawladda dhexe Soomaaliya wada hadaladan oo la filayo inay toddobaadka soo socda ay bilowdaan hogaamiyaasha mucaaradka iyo sidoo kale dawladda dhexe Soomaaliya u dhaxeeya ayaa wajahaya halis horle kadib markii Villa Soomaaliya ay dardar gelisay dhammaan qodobada la isku hay ee ku saabsan dastuurka iyo doorashada madaxweyne xasan sheekh ayaa ku eedeeyay mucaaradku inuu san daacad ka ahayn wada hadalada mucaaradka iyadoo xubnaha golaha mustaqbalku ay si adag uga digeen tallaabo kasta oo lagu bedelayo dastuurka inaysan ictiraafi doonin guud ahaanba warkii ugu dambeeyay xal ka soo baxay Jubbaland wuxuuna ku saabsanaa intay doodaasi socoto ku saabsan dastuurka inaysan Jubbaland diyaar u ahayn qodobada la isku hayo inay kala fariisato abay ku dhaqantaba siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamo kamid hogaamiyaasha mucaaradka kuna jira golaha mustaqbalka oo ay ku midoobeen mucaaradka iyo sidoo kale madasha waa labada maamul goboleed wada hadal daacad kama ahan ayuu yiri mana jiri karo iyadoo go'aamo aan laga laaba karin ee lagu gaarayo albaabka ee gadaashood isbedelka dastuurka oo weyn xilli noocan oo kale wuxuu halis gelinayaa wada hadalada sidaas ayuu ku dooday siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsam wuxuu sidoo kale xusay in wada hadalada ay aqbaleen mucaaradka ujeedkuna uu yahay in xal laga gaaro qodobada ay labada dhinac isku hayaan kuwaas oo ugu muhiimsan yihiin arrimaha doorashooyinka iyo dastuurka ficilada noocan oo kale waxay dhaawacayaan kalsoonida saaxiibada caalamiga ah kuwaas oo maal gelinaya xasiloonida iyo sharciga iyo dhismaha dawladnimada ee Soomaaliya qorshaha socda ee wax ka bedelka dastuurka ayuu ku tilmaamay mid muddo kororsi u gogol xaaray oo loo sameeyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale baarlamaanka wuxuu sidoo kale muujiyay sida xilligan loogu baahan yahay isxakamayn wada hadal iyo hoggaan mas'uul ah halkii laga qaadi lahaa go'aano qar iska tuurnimo oo wax u dhimaya xasiloonida mustaqbalka Soomaaliya wada hadalka u dhaxeeya dawladda dhexe Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka ayaa u muuqanaya dib u dhac kale inuu wajahayo xilli toddobaadkii la soo dhaafay dawladda dhexe Soomaaliya ee qaada tallaabo culus oo dib loogu celiyo dhammaan
duulimaadidii ka soo kala dhaqaaqay Garowe iyo Kismaayo. madaxweynaha Soomaaliya ayaa haatan safar dibadda bixinaya halka guddoonka baarlamaankuna uu riixayo wax ka bedelka qodobada la isku hayo ee arrimaha dastuur. taas ayaana ah ajendayaasha ugu culculus marka loo eego dooda miiska saaran iyo dagaalka siyaasadda. dhanka kale aynu eegno gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ganaaxay 6 xildhibaan oo hor oo ay ku jiro siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur, xildhibaan Sanyare iyo xubno kale, waxaanay ku biirayaan ku dhawaad 40 mudane oo hore loo ganaaxay, kuwaas oo labadii fadhi ee ugu dambeeyay isbedel ka sameeyay dhinaca markaasi ee dooda dastuurka. xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdiladiif Muuse Sanyare, Cabdiqaadir Xuseen Cabdi Urdoox, Saciid Daahir Ismaaciil, Axmed Cabdi Kooshin, xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire. 6daas xildhibaan oo ku jira golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la ganaaxay kadib doodii iyo sidoo kale dagaalkii farakadirka dhaxmaray guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada markaasi ee mucaaradka diidan dooda dastuur. maxaa la filan karaa marka? ganaaxa ku dhacay ayaa loo cuskaday qodobo iyo sidoo kale xeer hoosaadka baarlamaanka iyo dooda dastuurka, iyadoo ay soo baxayaan isbedelo kala duwan oo la filan karo sida ay xaqiijinayaan xogaha imika soo baxay. taas ayaa loo arkaa go'aamo waaweyn oo suurtagal ka dhigaya filashadii hore kuwa ka duwan sida ay qabaan falaqeeyaasha. dhanka kale aynu eegno maalinta bariye waxaa lagu wada fadhiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inuu ka qabsoomo fil Hargeysa. maxaa la filan karaa? caawa kulan weyn ayaa u socda xildhibaanada mucaaradka la ganaaxay iyo sidoo kale kuwa weli aan la ganaaxinba. kulankaas waxa qorshihiisu yahay mar kale in la diro raaca afraad ee fadhiga baarlamaanka ee mucaaradka ku wajahay guddoonka baarlamaanka. sidoo kale xogtu waxay sheegaysaa in sanatar aqalka sare ay jiraan oo iyagana ay suurtagal tahay in ganaaxu ku dhaco. intaan eegin xildhibaanada muxaafadka oo maanta shir yeeshay go'aanka ka soo baxay aan ka hormariyo xubnihii dhawaan ka baxay golaha samata bixinta mucaaradka ee Cumar Cabdirashiid hogaaminayay ayaa soo saaray go'aan culus oo ku saabsan dooda dastuurka miiska saaran iyo dagaalka siyaasadda. ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo siyaasiga Daahir Maxamuud Geelle oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, iyagoo cadeeyay mowqifkooda ku aadan xiisadda ka dhalatay arrimaha dastuurka oo ay isku hayaan dawladda dhexe iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka. labadan dhinac ayaa ku nuuxnuuxsaday qodobada ku saabsan muhiimadda ay leedahay in marka hore la ixtiraamo dooda miiska saaran ee ku saabsan dagaalka siyaasadda. muuqaalkan daawo waa Cumar oo hadlay. madaxweyne amre zaare uu kursiga ku weynay ama xisbiyo loo xirayo yani muddo hadda badan 3 xisbi kaliya. waxaan arrimahaas inay khatar ahaayeen runtii annagoo madasha markaas wada jida ayaan doodaas la galnay xukuumadda iyo dowladda. waa adigu 5 fadhi 5 shir aan galnay iyo ka badan. waxaan markii dambe ku heshiinay in qodob badan saas yani aan isku waafaqnay annaga oo markaas 4 ahayn ayaa qodobadaas aakhirkii dowladda la siixanay. waana waxaan isleeyahay runtii waxay u ahayd budig dowladnimada Soomaaliyeed inaysan gelin shaki iyo wareer yani habka madaxweynaha loo dooranayo, habka uu saanada ku weynayo wasaaraha ama xisbiyada sida habka ay ku soo gelayaan iyo sharciyadooda. marka 3daas qodob waa jecleen runtii annaga in maadaama heshiiskan uu ahaa 25 August waa jecleen hadda ku huru in la keeno baarlamaanka oo yani waqti hore la keeno, laakiin maanta qadarka alla ka dhigay ayadan maaragtay waxaan rabnaa dowladda inaan uga mahad celino runtii inay yani wixii lagu heshiiyey ku dhaqantay oo ay keentay. dad badan baa waagii shaki geliyey maadaama ay daahday heshiiskaas in la waafajiyo cutubka 4aad. dad baa shaki geliyey inaanan marna aysan maaragtay waxba laga soo qaadin, laakiin maadaama akhriskii maanta ugu horreysay ay ahayd 3daas qodob ee cutubka 4aad ka tirsanaa
waa bogaadinaynaa runtii dowladda iyo guddiyadii kasoo shaqeeyey waafajiyey heshiiskii 25 August. maanta waxa dhiman waxa weeye waa arrimaha doorashooyinka iyo hadda shirarkan nagu soo wajahan madasha mustaqbalka iyo dowladda yeelanayaan. ayadana waxaan rajaynaynaa runtii in is-afgarad uu ka soo baxo. dalka sideeda waqti iska xasaasiyaan maraynaa oo hadda gabagabo iska tahay. waxaan rajaynaynaa in si miyir qaba iyo wada hadal iyo isku furnaan lagu wajaho inta hadsan oo is-afgaradna ka yimaado. ummadda Soomaaliyeed sideedaba hadda caalamku siyaasadan isbedelaya waxay runtii khatar weyn ku tahay dalalka kan taagta yar. maanta adduunka wuxuu u shaqeynayaa waa nin xoog leh, nin xoolo leh. waxaan rajaynaynaa inaan uga baxno midnimo. dadkeenna wax allaa wixii midaynaya ee dadka isku keenaya inaan isla qaadno. maanta waxa kaliya gaashaanka kaliya aan haysanaa ee aan ugu gudbi karnaa waqtiga khatarta ah waa sideedaba inaan midaysannahay, kana shaqaynaynaa wixii ummaddan isku keeni kara, kana fogaanaa wixii na kala irdayn kara. marka runtii anigu waxaan rajaynayaa aan ku darayaa arrintan dalku ayadoo hadda siyaasaddii ay wax yar dee ka hadsan yihiin doorashooyinkii hadda laga wada hadlayo, haddana abaaro ba-an ayaa dalkii ku dhuftay. dowladda, xukuumadda, culamaa u diinta, ganacsatada, ummadda Soomaaliyeed in waxaa muhiima ay iska kaashadaan runtii in abaarahan laga hortago. oo dee dad badan oo Soomaaliyeed ayaa daafaha dalka yani ku dhibaataysan biyo la-aan haysaa. in tanna loo gurmado. sideedana dalkan waa qani oo biyo badan buu leeyahay. in dalka dee sida dowladnimadu waa inay u adeegtaa dadka, kana يعني وأنا أذكر وحلا وحي دو بريتك إيمان كلا إلا غفرت وهذا ما عرفت. ورجينا يا حدي أنا حسلون السياسات دل كان لهله ولو قد بأرنتان هذا ما أنت عن الله فدي هذا الخيري دل كان إنه برواقي برا قاري دل كان هو استراتيجي رجال بدن بوليه هي غنوي حوله بد إن معدن الشيدار وحكس وليه بس waxa gadaal noo dhigay markasta waxa weeye siyaasadan aan xasilooneyn ee markasta soo noqonaysa. waxaa muhiim ah in laga gaaro maaragtay muwaafaqo guud ee markaas loo jiheysto sidii dalkan dhaqaale lagu sameyn lahaa. dhalinyaro badan maadaama dalka 100%